waa munaasabad ay ka qayb galeen guddiga sare ee midowga duulimaadyada iyo dalxiiska Soomaaliyeed ee SATA xildhibaano wasiirro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya xubno kala matalaya bulshada rayidka iyo maamulada diyaaradaha caalamiga ah ee ka howlgala Soomaaliya iyo xubno kale ujeedka munaasabadan ayaa ahayd doorashada guddoon cusub oo ay yeelato SATA ugu horeyntii madasha waxaa daahfuray maareeyaha hay'adda duulista rayidka Axmed Macalin insha Allah taala waxaan rajaynaynaa maamulka cusub maanta la doorto in aan la dhameystirno haduu ilaahay waqtiga kulul awgiis oo xadidan iyo marti fara badan oo wasiirada noo joogta waxaan rabaa intaas inaan ku soo koobo guul ayaan u rajaynayaa ururka SATA waxaan leeyahay dadaalka aan wadaan si wada gudoomiyihii guddiga doorashooyinka SATA Daahir Salaad ayaa sheegay in maanta ay dooranayaan guddoon cusub oo hogaamin doona SATA 4 sano ee soo socota waxaan isugu nimid doorashada gudoomiyihii afaraad ee ururka duulimaadka iyo dalxiiska Soomaaliyeed ururka wakiilada duulimaadka ee dalxiiska Soomaaliyeed SATA oo dooranaysa maanta gudoomiyihii afaraad xafladaas ayaan maanta isugu nimid waxaan rajaynaynaa inay si qurux badan noogu dhacdo adinkana aad marqaati ka ahaatiin ka soo qaybgalayaashiina waan idinkaga mahad celinayaa sida quruxda badan ee aad noo soo ajiibteen mar labaad intaasi kadib labadii xubnood ee u tartamaysay guddoonka SATA ayaa khudbado waxa ay ka horjeediyeen xubnihii madasha ku sugnaa waxaan rajaynayaa insha Allah taala horumar ballaaran inaan sii gaarsiino oo aan si fiican wax walba si aan baqaadno aad iyo aad u mahadsantiin guddiga boorkan waxaan kula talin lahaa codkeen dhinaciisa soo noqdo insha Allah meesha taaganta xiriirada hadleedahay in xoojiyo iyo xiriir cusub aan sameeyo insha Allah taala doorasho waqti socotay kadib gudoomiyaha midowga duulimaadyada ee dalxiiska Soomaaliyeed ee SATA waxaa ku guuleystay injineer Mursal Maxamed Cabdi sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir tirada guud ee codeysa waxay ahaayeen 30 injineer Axmed wuxuu helay 5 cod injineer Mursalna wuxuu helay 25 cod saas waxay tilmaamaysaa in injineer Mursal injineer Mursal uu ku guuleystay codkii ay bixiyeen golihii saaka codeeyay mabruuq aan leenahay ninka kale odayga asna uu dadaalay labadiina waa guuleysteen SATA guuleystay Soomaaliya guuleystay assalaamu calaykum waraxmatullahi intaasi kadib mas'uuliyiin kala duwan ayaa madasha ka hadlay kuwaas oo uu qayb ka ahaa gudoomiyihii hore ee SATA iyo mudanihii laga guuleystay sideed waxa la yiri doorashada la gaar loo qof mid sideed mid uu guuleystay jiray taala SATA guuleystay إن شاء الله تعالى مجلس حملي بورك يقعد الممثلين هو يقعد الممثلين إن شاء الله تعالى قدومها بلغاده دورشة وقناع سنة عن بلغاده قدومها عشان على شغالين إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. oo aan meeshan ku codayno aan tusno dhamaan xubnihii aan xiriirka wada shaqeynta naga dhaxaysay hay'adihii rayidka ahaa iyo kuwii dawliga ahaa intaba waxaan rabaa inaan mar kale ku salaamo qof walba magaca iyo mansabka uu ku fadhiyo halkan waxaan kaloo rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo xubnihii boorka doorashada sida hagar laantaani walaalkayba noo doortay doorashadan guushan ay igu siiyay ilaahay mahadaas kale aad iyo aad u mahadsan ayagana waxaan kaloo rabaa inaan halkan uga mahad celiyo ka soo qaybgalayaasha dhammaan ama boor ha noqdaan ama hay'ado dhammaantood waxaan rabaa si gooni ah inaan ugu mahad celiyo guddigii fulinta oo gudoomiye Cali oo iga hor fadhiyo anaan ka mid ahaa xubnihii fulinta hawshii hagar laanta ahayd ee soo qabteen 4 sano la soo dhaafay إن شاء الله تعالى وحن رجينا يا هوش ماشي دينا كسي وضو صاحبك ما أنت وحول وريق دونا حافظ لسان شغالة قيبدان أو بلدنا وها أنت أصو حافظ ككوبان لكن أنا أنت سلمان وريق مركا واجن نسيب بدني هاي مركا أنا أنت هايستا ميزانية دي أيكو قبضة الدورشة يعني إحنا لقى سو قاعدين inaan maanta xilki ku wareejiyo qasnadeedana aan lacag ku ogahay sharaf gooni ay tahay waxaan rabaa in aan u hambaliyeeyo reer SATA oo guul weyn gaaray maanta runtii ninkii guuleystay iyo kii laga guuleystay iyo kii meeshan keenay iyo dhammaan reer SATA waxay direen fariin aad u qurux badan waa ugu hambaliyeynaa madasha oo ay ku sugnaayeen mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadkii ka hadlay waxa qayb ka ahaa xildhibaan Cabdiraxmaan Ibbi
wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Cabdullaahi Sheekh Cali Qalooco wasiiru dowlaha wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta Maxamuud Macalin Yaxye iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalka Soomaaliya Cismaan Dube marka doorashadu xigmad badan bay ku fadhidaa in lagu doorto ma in lagu jecel yahay ma in lagu doorto waxa waaye wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku idmada waaye lagu siiyay lagu gartay mas'uuliyad aad qaadaysid waaye waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan arko nidaamka quruxda badan ee isku bedesheen meeshan waan idinku hambalyeynaya macali wasiir waxaan ku sheegayaa airportka waa meel xasaasiya waa meel shaqo badan waa meel ilaalo badan u baahan waa diyaarado iyo dad socda isdhaafay runtii waxaan qaraynaa doorasho qurux badan oo ilbaxnimo ku jirto oo seer sare loo soo agaasimay inay meesha ka dhacday marqaateenkana waxaan leenahay waa mahadsantihiin ka soo qaybgalayaashii iyo dadkii soo diyaariyay iyo sato oo runtii dadaalkan badan bixisay hambaliyo iyo salaan diiran aan uga soo jeediyo gudoomiyaha cusub ee satela doortay injineer Mursal Maxamed Cabdi aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya ilaahay xilka weyn maanta loo doortay inuu la garab galo waxaan u mahad celinayaa sharaxii la tartamay Axmed Cabdi Casiis oo dadaalay isagana waxa leeyahay never give up maybe next time inshallah hadii ilaahay ka dhigo sharaf baad muujisay gudoomiyihii hore waana anagu saaxiib shakhsi ah nahayo Ali Axmed Faarax halgan badanna soo maray dadaal badanna soo maray isagana halkan aan ka hambalyeynaya shaqadan oo dhami hadaanay gudida qabaqaabada iyo daahir iyo tiimkiisu aanay shaqayn may dhacdeen waa u mahad celinaya iyagana shaqada fiican ee quruxda badan ee maanta halkan ka qabteen si kastaba gudoonkan cusub ee ay doorteen gudiga sare ee midowga duulimaadyada iyo dalxiiska Soomaaliyeed ee SATA ayaa SATA hogaamin doona 4 sano ee soo socota xasan kaaye Som News Muqdisho.